shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood waxaa qabsoomidiisa iska kaashaday xafiiska xiriirka ka hortagga burcadbadeeda ee Soomaaliland loona soo gaabiyo CBC iyo urur goboleedka IGAD waxaana ka soo qayb galay xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Mr Maxbuub Macalin gudoomiyaha xafiiska ka hortagga burcadbadeeda ee Soomaaliland Maxamed Cismaan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka taliyaasha ciidamada badda asluubta iyo xubno ka socday wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaha kala duwan shirkan ayaa diiradda lagu saaraya muddada uu socdo istiraatiijiyadda baddeenu u leedahay mandaqada bariga Afrika iyo sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada badda iyadoo oo laga hortagayo falalka burcadbadeeda iyo arrimaha lidiga ku ah ammaanka badda ugu horreynna waxaa shirkaasi ka hadlay Maxamed Cismaan Indhoole gudoomiyaha xafiiska ka hortagga burcadbadeeda ee Soomaaliland iyo xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Mr Maxbuub Macalin oo shirkaasi faahfaahin ka bixiyay. So I'm happy that while here for other business this consultation process was going on and I'm getting this opportunity this morning. But just to tell you that this is a very important opportunity. saaka fursad ayay inoo tahay in aynu kulankan isugu nimaadno waana arrin muhiim ah oo geeska Afrika oo dhami uu danaynayo in la xoojiyo ammaanka badda oo istiraatiiji inoo ah from point of view of security, from the point of view of strategic development, and from the point of view of regional integration and cooperation. We'll be sitting here today for the next 3 days. muddada 3 cisho ah ee aynu halkan joogno waxaynu falanqeyn doonaa istiraatiijiyadda amni iyo kheyraadka badda ee mustaqbalka. waxaa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha guud Xasan Axmed Aadan iyo taliyaha ciidamada badda ee Soomaaliland Cabdi Xirsi Cali waxaanay tilmaameen ahmiyadda ay leedahay in la xoojiyo ammaanka iyo horumarinta xeebaha si loo adkeeyo kheyraadka badda Soomaaliland. waxaan eegi doonaa prioritiska waxaynoo ah hadda markaan ka hadlayno maritime resourceska ama maritime security markaan ka hadlayno hawlaha activity-da ku gadaaman ha noqoto piracy-ga iyo waxa soo dhan baynu soo hadal qaadi doonaa oo maritime security-ga naga geli doona waxaan eegi doonaa coastal guard-keena iyo hawlihiisa iyo activities-kiisa I think inaynu baaxadda baddeenu ay leedahay oo aad u ballaaran oo wajahan muxuu ahaa geeska Afrika waa jaamacadan warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.